Bismillahirrahmanirrahiim waxaan oo wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafici Show waa galabnimo Khamiis taariikhduna ay ku beegan tahay 21ka bisha 5 May 2026 qodoboreedka maanta aan ku falanqayn doonaa wuxuu noqonayaa maxaad kala socotaa dagaalka qarsoodiga ee u dhaxeeya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Xi Jinping waa madaxweynaha Shiinaha ee toddobaad ka hor booqashadii Trump ee Shiinaha Mareykanka waxa uu shaaciyay qorshe uu hub gaaraya 14 bilyan oo dollar ugu iibinayo Taiwan. Trump waxa uu arintaas u adeegsanayay in uu cadaadis ku saaro Shiinaha, laakiin markii uu Trump tagay Beijing wax walba sidii uu filayay ma aysan u dhicin. Dagaalkii Iran ayaa bedelay xaaladda oo dhan, dagaalkaas oo socday ku dhawaad 50 maalmood. wuxuu Mareykanka u adeegsaday hub badan iyo kayd military oo muhiim ah si hubkaas dib loogu sameeyo warshadaha Mareykanka waxa ay aad ugu baahan yihiin macdanta muhiimka ah ee Shiinuhu gacanta ku hayo. taasina waxa ay Trump ku qasabtay in uu si taxaddar leh ula hadlo Shiinaha halkii uu cadaadis badan saari lahaa. ugu dambeyntiina booqashadaas wax heshiis oo weyn ah kama uusan helin ayaa leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. dhanka kale Xi Jinping muxuu sameeyay asna Xin waxa uu si tartiib ah ula hadlay in uu Mareykanka ama cadaadis ku saaro iyo mid diblomaasiyadeed madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. marka hore waxa uu si muuqato isu tusi isaga oo la safan xulafada ka soo horjeeda Mareykanka waxaana la kulmay Vladimir Putin madaxweynaha Ruushka ee isaga oo soo bandhigay sawirro muujinaya xiriirka dhow ee labada dal. waxaana sidoo kale waxaa la filayay in uu toddobaadka dambe booqasho ku tago waqooyi Kuuriya si uu ula kulmo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. waxay arintaas u muuqatay fariin uu dunida ugu sheegayo Xi Jinping inuu Shiinuhu leeyahay xulafo adag halka Trump uu khilaaf kala dhaxeeya ama khilaaf kala kulmayo qaar kamid ah xulafada reer galbeedka. arintaas kuma eka ee Trump markii uu ka soo laabtay Shiinuhu waxa uu isku dayay inuu dadka isu tuso inuu xiriir cusub la sameeyay Shiinuhu, laakiin Xi Jinping ayaa si adag u muujiyay in arintu sidaas u fududeyn kadib markii Shiinuhu uu qaaday tallaabooyin cusub oo cadaadis dhaqaale iyo tiknoolajiyad ah. waxaana gudaha Shiinaha laga mamnuucay wax soo saarka shirkadaha tiknoolajiyada ee Mareykanka, taas oo dhabarjab ku ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump maadaama uu wafdiga ugu badan ee safarka Shiinuhu ku weeliyay ay ahaayeen madaxda shirkadaha tiknoolajiyada ee Mareykanka oo wada shaqeyn iyo heshiis cusub ka filayay Shiinaha. kadib markii Xi Jinping waxa uu qaaday tallaabo kale oo muhiim ah, Shiinaha waxa uu dib u dhigay booqashada la filayay in uu Beijing ku tago Albert Kolbe oo ah madaxa siyaasadda ee waaxda dagaalka ee Mareykanka ee Pentagon-ka. ujeedada booqashadan kadib markii dib loo dhigay waxaa lagu sheegay inuu Shiinuhu doonayo in uu Mareykanka ka baxo ama uu joojiyo heshiiska hubka oo gaaraya 14 bilyan ee la siinayo Taiwan. dhinaca kale xaaladdan waxa ay u muuqataa in kadib markii uu Trump doonayay in uu Shiinuhu ku cadaadiyo in isaga uu dib ugu dhacay kaarka cadaadis oo uu doonayay inuu Shiinuhu ku cadaadiyo xitaa markii Trump uu dib ugu laabtay Mareykanka waxa uu Taiwan ugu digay inay ku dhawaaqdo madax banaani rasmi ah, taas oo muujinayso inuu si tartiib ugu dabciyo mowqifkiisii hore. ugu dambeyn Xi Jinping waxa uu hadda u muuqdaa in uu doonayo inuu Trump ka xiro dhammaan kaararka cadaadiska ka hor booqashada la filayo in uu ku tago Mareykanka bisha September ee sanadkan 2026. xaaladana waxa ay u muuqataa in Xi Jinping si degan oo aamus leh ugu faa'iideysanayo xaaladda adag ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu wajahayo waqti xaadirkan. safiirka u fadhiya qaramada midoobay Falastiin Riyad Mansour ayaa u sharaxan madaxweyne ku-xigeenka golaha guud ee qaramada midoobay isagoo u muuqda inuu haysto cod uu jagadan ugu tartami karo, balse talaabadan waxa ay ka caraysisay Mareykanka oo hadda ku hajabayo in uu safiirkan dalka galka kala noqonayo ergada Falastiin oo Mansour uu ku jiro. haddii uusan tartanka ugu jiro madaxweyne ku-xigeenka golaha guud ee qaramada midoobay uusan ka talaasulin
Falastiin sharci ahaan waxa ay u tartami kartaa xilalka qaarkood ee qaramada midoobay inkastoo aysan weli xubin buuxda ka ahayn qaramada midoobay. Falastiin waxa ay hadda leedahay maqaam loo yaqaano observer state ama dal kormeera ah oo aan xubin buuxda ka ahayn. Maqaamkaas waxaa la siiyay sanadka markuu ahaa 2012 kadib codeyn ka dhacday golaha guud ee qaramada midoobay. Maqaamkan waxa uu Falastiin siinayaa in ay ka qayb gasho doodaha, in ay soo gudbiso qaraaro, inay ku biirto hay'adaha caalamiga iyo in ay qabato ama u tartanto qaar ka mid ah jagooyinka iyo guddiyada golaha guud ee qaramada midoobay, taasoo sharciyad u siinaysa in madaxweyne ku-xigeenka golaha guud ee qaramada midoobay uu u tartamo safiirka Falastiin. Laakiin Mareykanka iyo Israa'iil ayaa marar badan waxa ay ka soo horjeesteen tallaabo kasta oo sare u qaadaysa aqoonsiga caalamiga ee Falastiin, sababtoo ah waxay u arkaan qabsashada jagooyinka sarsare inay Falastiin siinayso awood iyo aqoonsi u dhow xubinnimada buuxda ee qaramada midoobay.